howlgalkani qorsheysan oo ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ay ka sameeyeen deegaanka Jilib markaa hoostaga degmo-xeebeedka gobolka Shabeellaha Hoose markaa oo xarunta gobolkaasi ah ayaa kumaandooska iyaga oo ka feejigan dhagarta argagixisada waxay gudaha u galeen magaalada waxaana ay bilaabeen baadigoobka gaari waxyaabaha qarxa argagixisada ay ku diyaariyeen oo deegaankaasi ay ku qarinayeen si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee Soomaan ee aan waxba ka galabsan ciidanka oo gaariga xogtiisa hayay ayaa ku guuleystay gaariga oo nuuciisu ahaa saarif inay bartiisa ku gubaan kana badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed kumaandooska ayaa sidoo kale waxa ay guri u baareen dhammaan deegaanka Jilib markaa ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose baaritaanka ayaa waxa uu ahaa mid ay ku xaqiijinayeen ammaanka deegaankaasi isla markaana ay ku baadigoobayeen horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ee baxsadka ah howlgalka ayaa waxa qayb ka ahaa ciidanka midowga Afrika ee AMISOM taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa sheegay ujeedka howlgalka inuu ahaa ka hortagga dhagarta argixisada Al-Shabaab ay soo maleegayaan ummadda Soomaaliyeed taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka howlgalla kuwa la mid ay ka sameeyeen deegaanada Mubaarak Daarusalaam iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose ciidanka ayaa intii ay howlgalka u socday waxa ay burburiyeen goobo ay gabaad ka dhiganayeen horjoogayaasha maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ee lacagaha baadda ka qaada shacabka ku dhaqan gobolkaasi waxaana ay baaritaano ka sameeyeen dhammaan deegaanadaasi ay howlgalka ka sameeyeen muhiimadda howlgalka ayaa ah in gebi ahaanba cadowga laga cirib tiro deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan gobolkaasi Shabeellaha Hoose